وحن إلهي وقبرينا إلهي وحن إلهي وقبرينا صدح ذا الشهادة إذا من يرضى نوسي قرار الصمين إلهي ونحرس إلهي شرط الفردوس سجيه وحن سجارة وحن سجارة وحن سجارة وحن سجارة أنا بقولك هذه اليوم عندي شيء وحن سجارة ولا تعسيرنا ولا مرقورنا قوسسكي كسر شدين وسومالي لان إلهي ونحرسته إلهي ونحرسته إلهي ونحرسته يجعل الشهادة كردقو kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel walba aad joogtaan soo dhawaada mar kale halkan waxaan si gaar ah warbixinadeena aan ugu eegaynay maalmihii aanu soo dhaafnay doorashooyinkii weliba warbixinada dalka Kenya oo xaaladeedu ilaa iyo haatan aan go'aan rasmi ah laga gaaray marka ay timaado muran ka dhacay doorashadii lagu dhawaaqay natiijadeeda inuu ku guuleysto William Ruto laakiin xilligan warbixinteena waa ay ka duwan tahay gabi ahaanba dalkan Kenya waxaana ku eegaynaa xaaladda huwanti la'aanta markaasi ka soconaysa deegaanada Somaliland xilli dhacdo ugub ku ah dadka Soomaaliyeed iyo weliba dalkooda ka dhacday maanta Hargeysa gaar ahaan qabuuraha hale halka oo markaasi lagu rasaaseeyay shacab ku sugnaa dad dhalinyaro oo ku geeriyooday kacdoonkii 11kii bishan ka dhacay ka oo karanaha madaxweynaha hoggaanka u haya maamulka Somaliland ee Muuse Biixi haddaba waxaan ogsoonayn in dalka aniraada ismaamulka Somaliland uu ka jiray markaasi arrin ku aadan doorashada oo markaasi waqtigii loogu talagalay ay u muuqato inay ka dib dhacayso maadaama Cornel Biixi oo isagu lagu xasuusto inuu yahay mid ka mid ah haliyadii u soo halgamay Somaliland xilligii ay dagaalka kula jireen Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya maxamed siyaad barre in xilligan uu ku soo jeestay shacabkii u halgamay tabadelkeedana siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada Somaliland ay aad uga soo horjeesatay arrinta ku aadan kursi jacaylka ee Biixi iyadoona la xasuusto in qamiistii 11kii bishan 8 ee Agoosto uu markaasi hogaamiyay kacdoon lagaga soo horjeeday maamulkaasi Cabdiraxmaan Cirro lana xasuusto in xabadaha nool ay adeegsanayeen askarta booliska kuwa oo gabi ahaanba ka soo horjeeday waxyaabaha lagu diidan yahay maamulka Cornel Biixi haddaba maanta ayaa waxaa markaasi loo madlanaa in la aaso dhalinyaro ka mid ah kuwii banaanbaxaasi qaybta ka ah isla markaana loo sameeyo aas qaran oo markaasi ay ka soo qayb galeen xisbiyada mucaaradka madaxdooda waxaana qabuuraha halay isugu yimid Cabdiraxmaan Cirro iyo koox dhalinyaro uu hogaaminayay kuwa oo gabi ahaanba markaasi u tafaxaytay sidii ay ugu sameyn lahayn aas qaran laakiin arrintu waxay xumaatay markii uu goobta soo gaaray wasiir ka mid ah kuwa Somaliland ee markaasi wasaaradda xanaanada xoolaha qaabilsan ka oo lagu magacaabo Saciid Surub isla markaana uu doonayay inuu markaasi shucuurtiisa kala qaybsado dadka aaska loo sameeyay dhalinyarada laakiin hal mar oo qura ayaa waxa ku xoomay dhalinyarada kuwa oo iyagu adeegsaday dhagaxaan si ay meesha uga saaraan laakiin ilaalada askarta wasiir Saciid ayaa ugu jawaabay xabada noolnoolta oo gabi ahaanba sharciga caalamka iyo Soomaaliyaba aysan ku jirin in dadka banaanbaxaya loo adeegsado rasaas noolnool waana arrin ugub ku ah isla markaana soo noqnoqotay in badan Somaliland waxaana arrintan ay keenaysaa markaasi dagaal sokeeyay inuu ka dhaxdhaco iyadoona qaar ka mid ah madaxda iyo salaadiinta ay aad uga hadlayaan arrinta Cornel Biixi isagu uu markaasi ku sheegayo in marnaba laga ogolaan doonin cid walba oo ka soo horjeesata nidaamkiisa taa oo markaasi ay shacabka iyo waliba madaxda uga jawaabeen inay tallaabo adag qaadi doonaan Somaliland ayaa doorashadeeda loo madlan yahay inay dhacdo 13 dhamaadka sanadkan ee bisha November iyadoona ilaa iyo haatan aysan ka jirin wax markaasi ku aadan yididiilo doorasho inay dhacayso inta badan waxa la ogsoon yahay Somaliland inay markaasi tahay mid ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ay shacabka codeeyaan taa oo markaasi loo baahan yahay in xilli hore loo diyaar garoobo ololaha doorashada ilaa iyo haatan ma muuqato saameyn ama markaasi tallaabo ku aadan maamulka Biixi inuu markaasi ka sameeyay dhanka diiwaangelinta shacabka iyo waliba diyaarinta codadka markaasi aniraada kaararka codbixinta iyadoona ilaa iyo haatan aysan muuqan tallaabo adag laakiin Cabdiraxmaan Cirro isagu ka hadlayay goobta ay ka dhacaysa aaska ayaa sheegay inaysan marnaba quusin doonin tallaabooyinka guracan ee Cornel Biixi ka qabanayo haddaba arrintaasi ayaan faahfaahin kooban ku sameyn doonaa qaabka ay u dhacday dhacdada maanta ugubka ku ah ee markaasi dad dhintay dushooda in haddana lagu dagaalamo waliba rasaas noolnool la adeegsado haddaba waxaa igula sugan stuudiyaha Cukaasho markaasi arrimahan si gaar ah isha ugu haya Cukaasho dhawow
maxaan kala soconnaa somalilan oo xaaladeedu ilaa iyo haatan ay tahay mid murugsan marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay u naxariista dhalinyaradii ku geeriyootay maalnimadii aan ogeyn 11 bishan aan ku jirno magaalada Hargeysa kaasi oo waliba si indhalaan ah ay u dileen booliska Somaliland kadib markii ay mataqaanay mudaharaadii isla markaasna ay muujinayeen in mataqaanay dalka uu ahaa dal madax bannaan dimuqraadiyad ay raadinayeen balse si indhalaan ah booliska mataqaanay u dileen maanta waxaa loo madlanaa ama xisbiga mucaaradka labada xisbi mucaaradka wadani u cid soo qaban qaabiyeen janaasa loo sameynayay yaas qaran dhalinyaradaasi saddexda magaalada Hargeysa mataqaanay ku geeriyooday kadib waxaa meesha isna soo gaaray goobta qaar kamid ah xukuumadda Somaliland waa mas'uuliyiinta ugu sarsareysa sida Saciid Axmed Surub oo mataqaanay la wada garanayo wasiirka xanaanada xoolaha ah markii uu goobta soo gaaray oo la soo dhaweeyay sida isagaba uu sheegay kadib waxaa yimid in Cabdiraxmaan Ciro iyo waliba xisbiga iyagana mataqaanay Faysal Caawar uu hogaamiyo u cid in ay soo awleen dhalinyar aad u fara badan kuwaasi oo iyaga laftooda markaas ku imaaday gawaari waaweyn sida uu sheegay isla markaasna dhagax tuur iyo waliba mataqaanay ku sameeyay bahdilaad aad u xoogan muxuu ahaa wasiirka mar uu wasiirka uu hadlayay waxa uu sheegay in dhalinyaro ay isku hayb ay yihiin Cabdiraxmaan Ciro in arrintan mataqaanay ay ka dambeeyeen mana ahan markii uu horeysay wasiir Saciid Surub dhibaato noocan oo kale ah loo geysto waxaan ogeyn tan oo kale markii la soo bandhigayay boogi lagu xusayay madaxweynihii ugu horeeyay Somaliland Cabdiraxmaan Tuur lagu soo bandhigay meel hotel weyn isla markaasna lagu xusayay taariikhdiisa in ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo mucaarad aad u xoogan ee Somaliland oo ay kamid yihiin Faysal Caawar iyo waliba Cabdiraxmaan Ciro ay waliba xirsi oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaasna markii uu qabsaday mikrofonka Saciid Surub yaa waxa isqabsaday sawaxan iyo qayli guud ahaan bahowlka taasi oo keentay in lagu ooriyo wasiirka ma garanayo waxa sida goonida ah wasiirka mataqaanay isaga loo beegsanayo iidan ognahay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin in mar walba uu yahay ninka mataqaanay u jawaab mucaaradka u diida mataqaanay waraaqaha mudaharaadka ay doonayaan laakiin Saciid Surub inta badan xukuumaddu waa difaaca laakiin waxa kaga badan Kaahin isla markaas maalinka lafteeda habeenkaasi waxaa hadlay Maxamed Kaahin isaga oo sheegay in uu Muuse uu ka qabto dhalinyaradiisa carruurta mataqaanay uu soo abaabulay sida isagaba mataqaanay uu sheegay oo uu yiri Muusow muxuu ahaa ninka leeyahay Ciro naga qabo carruurtaada oo la jeeday dhalinyarada mudaharaadaysay naga qabso uu mataqaanay uu ku yiri marka arrimahaasi oo dhan waxay ku tusinaysaa in wasiirka si gooni ah in loo beegsanayo mana garan karno wax laga rabo iyadoo xabaal la kor taagan yahay in maanta lagu mudaharaado in mataqaanay laado in mataqaanay xitaa waxaa la keenay drones lagu duubay mataqaanay muuqaalka wasiirka taasi oo garanaysay inay mucaaradka u diyaarsanaayeen in ka hortag ay ku sameeyaan quwada laftooda inay mudaharaad ka sameeyaan aad weyn marka inta laga tago arrintan mucaaradka in badan waxay ku soo celcelinayaan u imanayso in dad shacab ay ku dhintaan banaanbaxyada ay sameynayaan tan ugu dambaysa maanta inkastoo qofku ku dhiman laakiin haddana qof meyd dushiisa meesha la yiri waa nabiga uu dhahay hala soo booqdo si markaasi loogu quus qaato oo qalbigu u jira laakiin haddana waxaa jirta in askarta ay xabad ugu jawaabayaan Muuse Biixi iyo kooxdiisa maxay ku diidan yihiin inay doorashada qabtaan ayna u diyaar garoobaan raggan kaliya waxa ay ku doodayaan waa in doorasho ay ka dhacdo dalka horta dooda inta badan waxay ku saabsan tahay ama hadda ay u astaysan tahay in doorasho la qabanayo 13 November bishan mataqaanay sanadkan dhamaadkiisa saas daraadeed Muuse Biixi Cabdi waxa uu leeyahay waxaan doonaynaa in axzaabta mucaaradka nafaray dastuurka in la furo ayaan doonaynaa taasi bedelkeed iyagana mataqaanay weydiideen waxay leeyihiin waa in doorasho loo diyaar garoobo waayo waxaan ognahay guddiga doorashada qaban la Somaliland inuu qabyo yahay oo qayb kamid mataqaanay is casireen looma diyaarsana xataa lacagii adduunka mataqaanay ay siin jireen doorasho loo qaban lama siin waayo umayba aan baqaanin ba xaqooda marka Muuse Biixi asaga wuxuu sheegayaa inuu dastuurka ilaaliyaha uu yahay isla markaasna marna uusan ogolaanaynin in xilligan doorasho la qabto asaga doorasho waa la qaban bulay waxa ka horeeyo in axzaabta marka hore la furo waayo waxaan ognahay shatiga ay wada haystaan axzaabta mucaaradka ee Somaliland iyo kuwa muxaafidka dhamaan Somaliland saddex xisbi mataqaanay ka jira markii laga reebay xisbiga udub oo mataqaan hore u dhacay oo burburay marka saddexda xisbi ee hadda mataqaanay talada haya dalka ka arrimiya waa xisbiga kulmiye oo madaxweynaha mataqaanay uu hoggaan ku hayo gudoomiyaha u yahay u cid iyo mataqaanay wadani
saas daraaddeed 13 November markii la gaaro axsaabtaasi dhammaan waxaa ka dhacay shatiga marka waxay noqonayaan axsaab wada siman oo garab siman bay noqonayaan taasi waxay keenaysaa marka in la soo dhiso dowlad wadaag marka mucaaradkan waxay doonayaan ilaa inay gaarsiiyaan inta mataqaana 13 November mataqaana laga gaarayo marba haddii 13 November la gaaro in axsaabta ay ka dhacayaan shatiyada xisbiyada ay haystaan maxaa lagu diidan yahay in la soo hormariyo si doorashada waqtigeeda uusan uga dib dhicin inta badan dalalka caalamka iyo waliba kuwa Afrika ha ugu badnaadaan marka doorashada waqtigeeda daba marto waxa qasaba amaba inta badan dhacdo dagaalo iyo waliba xaalad guud oo markaas wadanka u gali karo ay noqonayso in amnigii faraha ka baxo Somaliland iyadoo markan doonaysa inay hesho madax banaani caalamkana ay doonayso inay iska gado si ay u noqoto dawlad ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale haddana waxay sameynaysaa waxyaabo qaar oo markaas u suuragelinaynin inay dal madax banaan noqdaan Muuse Biixise waxaa la ogyahay inuu kamid yahay dadkii xisbiyada markaas Somaliland difaaciyay sanadii 1990 oo markaas madaxweynihii Soomaaliya Allahu naxariistay xurrimada Soomaaliya u dagaalamay Maxamed Siyaad Barre ka soo horjeeday waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dadka markaas hoggaanka u ahaa haddana isagiiba dadkii u dagaalamay dilay sida qaar ay sheegayaan madaxda xisbiyada mucaaradka muxuu markaas ku diiday inuu doorashada qabto horta waan kala qaadeynaa marka hore Muuse Biixi Cabdi haddii mataqaanay 13 November dil gaaro ma noqon doono gudoomiyaha guddiga muxuu ahaa gudoomiyaha waxa ka wada xisbiga kulmiye waayo haddii uu ahaado dastuurka mataqaanay oo galeen marka inuu iska wareejiyo inta aan la gaarin isagana wuxuu noqonayaa mataqaanay madaxweyne oo mataqaanay inta laga gaaray firaaq dastuuri ya mataqaanay yuusan ogoleen dastuurkan ogoleen marka inta madaxweyne bedela ka imaanayo waa in loogu daro intay fariistaan golaha guurtada iyo baarlamaanka ay ugu daraan muddo kororsi mataqaanay ay siiyaan ama sanad siiyaan ama 6 bilood siiyaan wixii mataqaanay ogolaadaan waana wax asaga uu doonayo mid ayada way midan kale caburinta markii uu la dagaalay Maxamed Siyaad Barre asaga mataqaanay wuxuu u diidanaa ama uu ka dhex arkay in talada dalka isaga uusan qaban karin iyo dadka la mid saas daraad marka wuxuu yiri dalka anaga caburin baa lagu hayaa saas uu dagaalay maantana isaga mataqaanay arinta eedeed mataqaanay dadka ku hayo caburintii sameynaya oo dadkii dilaya oo xiraya sida Cabdi Sheekh Muuse Coldoon wax dambi ah ma galabsan waa la ogyahay xabsi aan mataqaanay loo taxabay iyo dad mataqaanay la mid saas daraadeed marka caburintii isaga uu ka caradayay iyo mataqaanay maanta sameynaya wana waxyaalo inta badan lagu haysto oo xitaa hadda intuusan xisbiga hadda uusan doorashada aysan gelin meesha aysan qaban waxa ka horeysay raayo dagaal buu la galay oo waan ogeyn waa kii mataqaanay dhihi jiray aniga oo mataqaanay qoli ridi karo ma hoos fariisanay mataqaanay siraayo waxa ka horeeyay ninka ka horeeyay isagana sidaas oo mataqaanay wala dagaalay oo marka waxa leedahay arinta dhibaatada qofka shakhsiga ee siyaasiga ma ahan waa kursiga maya dhibaatada ugu daran mataqaanay kursiga way maya Muuse waxa uu doonay wuxuu ahaa kursiga inuu ku gaaro dadka shacabka uu ku gaaray haddana waxa difaacay mataqaanay ku hareersan waa hawar awal oo kaliya intii kale mataqaanay way ka hareen هذوين ومحسن هيك سنة عكاشة يوها إلا يوهاتن وها مركز مركزن حالة سوماليلاند يدونا ددك سيجارة إيشو وهيان ولو درشة أي كهر سنتا وحكير لبابيل يوليبا جوجو وحنا سوماليلاند شعب كنتي سكلا أيهين مركز كوبا دوجا هذا الهيا أرمها لحريرة درشة دي بدعة قطع إني سن وقت جدا كوير جري دونين ولو فلنقينا لقى سمعنا يسيد اللوجو جد بكرة إلهي وحن كبرينا إن حالك وسامي كسواريو تاني كل تدا مساحب يالنتان دي بوكل مينو وحن ندين كدا فينا سيدا أيو نبت قلي